war-saxaafadeed ka soo baxay taliska guud ee ciidanka booliiska Puntland ayaa faahfaahin hoose ka bixiyay dagaal saaka ka dhacay kontaroolka bari ee magaalada Garowe. Ciidanka booliiska Puntland ayaa maanta howlgal qorsheysan ku qabtay gaari bas ah oo horey looga dhacay xafiiska hantidhowrka guud ee dowladda, kaasi oo si sharci darro ah ay u dhaceen maleeshiyaad isku ekeysiyay ciidanka amniga kuwaasi oo horey loo oran jiray BSF. gaarigani oo la doonayay in ay si dhuumaaleysi ah loogu iibiyo koonfurta Gaalkacyo ayaa lagu qabtay kontaroolka bari ee Garowe, iyadoo ay ilaalinayeen gawaari kale oo dabley saarneed. Markii ay ciidanka amniga isku dayeen inay gaadiidkaasi joojiyaan, dableydii wadatay ayaa si ula kac ah rasaas ugu furay ciidanka, taasi oo sababtay dhimasho iyo dhaawac. ciidanka booliiska Puntland oo gudanaya waajibaadkooda dastuuriga ah sugidda amniga iyo ilaalinta sharciga ayaa si degdeg ah ugu jawaabay, iyaga oo gacanta ku dhigay labada gaari iyo shakhsiyaadkii ku lug lahaa falkan gurcan. baaritaan rasmi ah ayaa socda, waxaana dhammaan eedeysanayaasha la horgeyn doonaa sharciga. booliiska Puntland waxay bulshada u cadeynayaan in aysan jiri doonin cid ka sareyn karto sharciga. cid kastoo isku dayda in ay carqaladeyso amniga shacabka ama isku daydo inay ku tagrifasho awoodda dowladda, si kastaba ha isku qarisee waa la xisaabtami doonaa. marka baaritaanku dhamaado, booliiska waxay dadweynaha u soo bandhigi doonaan faahfaahinta dhabta ah ee kiiskani si ay cadaaladdu u noqoto mid muuqata. dowladda Puntland waxay mar kale ku adkeysan doontaa go'aankeeda